رجلا دعا لله بالقرآن بالخلق الحميد قد بات طول حياته يدعو إلى دين السلام رجلا دعا لله بالقرآن بالخلق الحميد قد بات طول حياته يدعو إلى دين السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. waxaan ku jirnay risaaladii yarayd ee ku dhex jirtay kitaabka lagu magacaabo Badaa'i'ul Fawaa'id لابن القيم الجوزية رحمه الله جل وعلا. risaaladaas oo ahayd qofka xaasidka ah waxyaabaha uu kaga guulaysan karo qofka xasda oo sheekhu waa kan yidhi إن شر الحاسد يندفع عن المحسود بأسباب كثيرة أهمها 10. قفك حاسدك wuxuu isaga celin karaa qofka la xasdayo ayaa iska celin karaa arrimo badan. arrimahana waxa ugu muhiimsan buu yidhi 10 shay qofka hadduu sameeyo xasadkii iyo xaasidkii dhibaatada ay wadeen waxay ka qabanayso ma laho ma aragtay xasadkii ku dhici maayo waxba ka qaadi maayo. tan ugu horeysa waxaan niri waa al-isti'aadatu billahi ta'ala min sharrihi in ilaahay laga magan galo oo la akhristo suurat qul a'uudhu birabbil falaq adkaaru sabaax wal masaa in la akhristo wardiga ilaahay in la badiyo. tan labaad sheekhu wuxuu yidhi as-sababu thani sababka labaad oo qofka maxsuudkee la xasday qofka xaasidka shartiisu isaga celin karo waxa weeyaan taqwa Allahi jalla wa ala cabsida ilaahay oo laga cabsado. cabsida ilaahay waxaan niri waa ficlu al-ma'muuraat wa tark al-manhiyaat weeyaan. taqwada intaasay ku soo kooban in la yimaado waxyaabaha ilaahay uu amray waxyaabaha ilaahay uu diidayna in laga fogaado iyo rasuulkiisa waxay amreen la yimaado rasuulka wuxuu diidayna laga fogaado. taqwa Allahi azza wa jalla wal muhaafadha iyo in la daa'imo oo la xifdiyo ala taa'atihi taa'atu Allahi jalla wa ala. taqwadii weeyaan tafsiirkeedii inaad xifdiso taa'adii ilaahay oo meel kastood marayso inaad ku soconayso taa'adii ilaahay. wal bu'd iyo in laga fogaado عن معصيته إلهي معاصيدي سأور رابا إن لغا فقادو تاس ويان سيدا هدات سميسو تقوذي إلهي لتمادو طاعدي سنة أدحف ديسو معاصيدينا أتكفقاتو وحويان قفكي حاسد كاها شرتي سيساقا يكون نقونيسا. شيخ وحو يري فمن اتقى الله تعالى قفكي إلهي كعب صدا تولى الله حفظه إلهي إسقى توليا إلى لنتيسا إلهي بمسؤولك ولم يكله إلهي نأمدي بأرن كيسا قفك إلى غيره قفك له وقفك إلهي كعب صدا وتقوذي إلهي لي ماذا إلهي وحفظيا أرن كيسا نقفك لأمدي بإلهي سقى ماموليا واتي رسولك وكد عيسين جدي اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. أذكار الصباح والمساء ويان قفك إلهي كعب صدمركا إلهي سقى وإلى لنيا ولم يكله إلى غيره. قال تعالى الله وحيدي وإن تصبروا قدات صبرتان وتتقوا إلهنا كعب ستان وضدك إذين دبيا وإذين حزديا وخير أن إذن لرب شرعي حماة إذن لرب هداد صبرتان وتتقوا
taqwadii ilaahay alla timaadaan cabsidii ilaahay taacadiisii ilaahay wuu idin ilaalin laa yadurukum idin dhibi maayo kayduhum dhagartooda shay-an waxna taqwa allaahi iyo wasabr waxaa looga guulaysanayaa qofka xaasidkaa ee caloosha xun ee dadka la jecel waxay haystaan inay waayaan isagana ay ku soo wareegto ilaan xasadka waa kaan soo sheegnay watamannaa an yatamannaa an tataxawal ilayhi nicmatuhu wa fadiilatuhu xaasid qofkaas la dhihi karaa qof baa nicmo haysta wuxuu rabaa wixii oo dhan inay ka tagto isagana ay ku soo wareegto qofkaana baabba uu noqdo maal hadduu haystay eber inay ka noqotuu rabaa carruur hadduu haystay eber caafimaad hadduu haystay jirro in loogu bedelo isagana uu noqdo ninka wax kasta haysta wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a taqwada ilaahay markaa xasadkay kaa dhowraysaa iyo sabarka وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولك وحو يري صلى الله عليه وآله وسلم حديث عبد الله بن عباس لعبد الله بن عباس مرء لا هذي احفظ الله إلهي إلالي يحفظك وقدور رياي أي احفظ حدود الله جل وعلا حدود إلهي يوحيابا وكار ريبي كفقوا إلهي وكو إلالين نفتاذوا إلالين أولاداذوا إلالين maalkaagu ilaalinaya cirdigaagu ilaalinaya yaxfadka ixfad illaah alle ilaali cabdullaahi iyaguu ku yidhi tajidhu tujaahaka hortaadaad ka helaysaay micno khayr oo dhan wax dhib ah oo hortaada istaagaya male wax shar oo ka hor imaanaya male xaasidkii hortaada taagnaa oo shar oo dhan kula rabay haddaad ilaahay xifdiso waxa weeyaan dhinac baa lagaa marin ixfad illaaha tajid tujaahak rawaahu الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح فمن حفظ الله قفكي الله حفظيا أي حدود الله ويان حفظه الله إلهي وحفظيا ووجده الله هليا أمامه هرتيسا أينما توجه ملك سوجيته وحو أمور تعالى إلهي بذولي بتي marka xuduudda ilaahay haddaad ilaaliso wax kastoo hortaada yaalla ilaahay baa fududayn allahna subxaanahu wa tacaala hortaadu joogaayo wuu ku ilaalinayaa waman kaana allaahu xaafidahu qofku ilaahay noqdana qofku ilaalinayay ilaahay hadduu noqdo qofkii ku waardiyeynayay wa amaamahu qofkii ilaahay hortiisa uu noqdana faminman yakhaaf sheekhu sidaasuu le yuu ka cabsanaya وممن يحذر يكدكتونين يا اسك إلالينيا لا ويا لا أحد يخاف ولا أحد يحذر قفك إلهي وإلاليو وإلهي حريق يسقف صدا يا مكه الاستاجي ومن كان الله حافظا وأمامه فممن يخاف ولمن يحذر تاس وسبك لباد مركا كي هون وحان لي حاسدك وحلوه قوليسن الاستعادة بالله برب الفلق والله أخريه من شر حاسد إذا حسد باكجرت تنلبالنا تقوى الله عز وجل عبسدي إلهي والله قد داله السبب الثالث سبب كسدحات إنه فضضيني إن كقوليسن قفك حاسدك حسد كان وعذر رنتي آدي أبو بضن ويان أحاديث بدنا يكسو أروتي الله سبحانه وتعالى ضدك حسادا وكورمي أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ربي ما أرقتي حالك وضك يابي وارمحوا إلهي بحيي بما أرقتي حسديان أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله طيب حسد كان أبو بدن هي زمن كان هدي ودينتي أي راتي وتقوضي إلهي أي راتي ضدك حساد آديات بأبدنيه سيدان سقيل أنا سبق السدحاد الثالث وحويان الصبر إنه أصبر على عدوه قفك عدو قيسي حزديا قف عدو كوغوة أما وحبا لغاقص وشيقي أما وابا دريم يسابه
inaad u sabarto falaa yuqaatil yuusan la dagaalamin kow walaa yashkuuhu dadkan hagu dacwooni intaad meel kasta tagto tiraahdo ninkaasaa i dhibay talow iga qabta waxaasuu igu sameeyey ama dacwad intaad qorato ma statement aad soo qorto tiraahdo ma aragto oo bin number soo qaadato tiraahdo ninkaas niman yahow waa uu i dhibay hala soo qabto ma hal xanuujiyo la walaa yashkuuhu waa waxyaabaha aad kaga guulaysan karto walaa yuxadithu nafsahu biadaahu aslan dhibka uu ku geystayna naftaada hadda ha ugu sheekayni ilan laga yaabe salaadii buu ka hadlaynayaa qur-aankii tadabburkiisii buu ka hadlayn ducadii ilaahay aad baryaysay buu ka hadlaynayaa shaqadaadii adduunyada aad qabsanayso o dhan maantao dhan baad ka fikiri laakiin haddaad isilmaansiiso oo ilaahay aad ka cabsato oo adkaartaas aad ku dadaasho waxa weeyaan waad ka badbaadi walaa yuxadith nafsahu biadaahu asla sinabo famaa nusira alinsaanu calaa xaasidihi wacaduwihi bimili الصabri calayhi famaa nusira alinsaanu insaan looma gargaaro uu yidhi sheekhu qof looma gargaaro calaa xaasidihi loogama gargaaro qofkii xasdayey wacaduwihi iyo cadowgiisii bimili الصabri calayhi wax la mid a inuu u sabro micnaha haddaad u sabarto waa lagu gargaari laakiin haddaad sabri weyso oo aad la dagaalanto oo aad ka sheegato oo aad naftaadii maanta oo dhan ugu sheekayso stress iyo depression baad ka qaadaysaa adigaa jiran laakiin haddaad u sabarto waad ka guulaysan sidaasuu sheekhu leeyahy famaa nusira alinsaanu calaa xaasidihi wacaduwihi bimili الصabri calayhi wاltawakuli cala allahi jala wacala iyo in ilaahay la tala saarto asabr iyo tawakal cala allahi baa looga guulaysan markaa naftaada ha ku mashquulinin badanaa cudurrada dadka ku dhaca waxay u badan yihiin ama qof dhibay bay u sabri waayeen ama walaal ha noqdo xaas ha noqdo saaxiib ha noqdo waxyaabo badanood qabsan lahayd baa waxaad ku mashquuli qofkan sidaad oola dagaalami lahayd sidaad ooga guulaysan lahayd sidaad ooga dacwoon lahayd naftaadii oo dhan baad mashquulisay qofka wuu kaa guulaystay marka xasadkiina wuu ku soo gaarayaa laakiin sabr haddaad la timaado iyo tawakal cala allah waxa weeyaan waad ka guulaysan watawakal cala allahi walaa yastatil yuusan dheeraysan oo maalan yuusan dhihin niyahu ninkan dhibkiisa iyo xasadkiisa waa kugu dheeraaday ta'khiiruhu wa bagyuhu gargaarka oo ka daahayo qofkan looga gargaarayo iyo baqyigan qofka uu ku wado yuusan dheeraysan oo yuusan dhihin goormaa mataa nasrullaahi war ninkan goormaa la iiga gargaari laakiin sabr dadaal ilaahayna tala saaro qaala jala wacalaa alle wuxuu yidhi dalika waman caaqaba bimili maa cuuqiba bihi uma buqya calayh layansurannahu allah dalika waman caaqaba qofkii ciqaaba bimili maa cuuqiba bihi wax la mid ah wixii lagu ciqaabay maalan qofka waxaa u bannaan qof hadduu dhib kuu geysto inaad dhibkii mid la mid ah aada u geysato dhib baa lagu geystay dhibkii mid lamid aad u geysatay kadibna qofkii baa kugu sii xadgudbay oo dhibkii buu kugu sii wadaa uma buqya calayhi kadibna lagu xadgudbay layansurannahu allahu ilaahay wuu gargaarayaa laa maxaala faannasru ilayhi aqrabu sidaas weeyaan aayaddu markaa waxay tusaysaa inay kuu bannaan tahay qofkii dulmi kugu sameeyey mid la mida inaad u geysato laakiin baqyi hadduu la yimaado ha odhanin war qofkan maxaa la iga gargaari waayey maxaa la iga qaban waayey arrintiisu waa igu dheeraatay nasrigii ilaahay markaasuu ku imaanayaa uma buqya calayh layansurannahu allahu ilaahay wuu gargaarayaa facalaa kulli xaal saddexdaa aan soo sheegnay ugu horreeya toddobaan noo harsan oo xasadka looga guulaysto kow in ilaahay laga magan galo acuudu billahi min ashaytaan rajiim xasadka allahuma inii acuudu bika min shari xaasidin idaa xasad qul acuudu birabbi lfalaq oo la akhriyo tan labaad taqwa allaahi
المحافظة على طاعته إن لقد ذا العبسد إلهي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا تنسد حالنا إلا صبروا وأنا لقى شيئا وأنا لدعوين ونفت هذه أذنكم مشغولين تقوى الله وطاعته وأتكم مشغول شو سداسا حاسدك لو قوري سنيا والله أعلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفيهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفع عنا هذا المرض اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا رجزك وغضبك إله الحق ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ونعيذ أهلنا وأولادنا بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة والحمد لله. اللهم صل على محمد.